السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان قيارتي توبان إذا سلامي عشان كان ما انتو عكو سابسين ياي سيدي باك جراوند كا لغاقي بدالي جنا هذا أنا باك جراوند كيكا سيدان أيان أصوب صدي قفا كلا دو إمادو isla markii backgroundku uu bedeli karaa oo right click doo dhaho oo properties tago isla markii uu ka bedeli karaa oo sawirka oo rabo ayuu saaran karaa marka u jeeda sawirka oo rabo ayuu saaran karaa qofka marka sidee lagaaga bedeli karin marka sidee lagaaga bedeli karin oo kugu sahlan waxay tahay waxaad furaysaa start menu kadibna waxaad furaysaa run ayaad furaysaa marka run fur waxaad ku qoraysaa gp edit.msc oo ah group policy.microsoft console ayaad kadibna okay ayaad leedahay kadib marka okay dhaadid waxaad ka dooranaysaa meeshaan ku qoran tahay administrative temporary ayaad furaysaa meeshaas balaaska ayaad ku dhufanaysaa kadibna markaad furtid waxaad tegaysaa meeshaan ku qoran tahay control panel ayaad furaysaa marka waxaad furaysaa control panelka ayaad balaaska furaysaa kadibna waxaad ku dhufanaysaa meeshaan ku qoran tahay display ayaad ku dhufanaysaa marka display ku dhufatid waxaa ku soo baxayo meeshaan ay ku qoran tahay remove display in the control panel kadib markaa double click ku siisid sidaana ayuu ku soo baxayso marka waxaad ka dooranaysaa meesha ku qoran tahay enable ayaad ka dooranaysaa kadibna apply al ayaa leedahay kadibna okay ayaad ka dooranaysaa markaan hoos iska soo dhigno kadib qofka markuu imaado computerkaaga inuu bedelo markuu isku dayo right click ayuu leeyahay isla markuu right click kadibna properties ayuu ka tagayaa marka ujeeda waxaa loo saaray your system administrative disabled the disable console panel macnaha waa qofkii mas-uulkaayo macnaha xaggiisa uu ka xiran yahay haddii xitaa isku dayo intuu meeshan kala aado control panelka hadduu fiirsho start menu control panel uu aado markuu sidan ugu soo baxo oo haddana oo imaado meeshaan ku qoran tahay displayga markuu ku dhusado oo double click siiyo waxaa usoo baxayo isla sidii hore ayaad usoo baxayso oo waa ujeedaa isla sidii usoo baxayso ma awoodo qofka marka adigana waxaa ka xirtay group policyga xaggiisa ayaad ka xirtay kadibna okay iska dheh iska xir haddii aad u baahan tahay inaad dib u furatidna isla meeshii ayaad ku laabanaysaa oo group policyga ayaad imaanaysaa kadibna waxaa ka dooranaysaa template ka dooranaysaa administrative-ka kadibna waxaad tegaysaa control panel kadibna disable ayaad tegaysaa kadibna display ayaad tegaysaa sorry kadibna meesha ka qortaa remove display ayaad double click siisan kadibna markaa imaadid waxaad leedahay not aad leedahay configurate kadibna apply kadibna okay ayaa leedahay kadibna iska xir right click dhe markaan wuu ku shaqeynayaa markaan sidii hore ma ahan wuuna ku furmayaa right click markaa dhaadid kadibna properties aad ku dhusatid marka ujeeda inuu ku furmayo marka backgroundka sidaas ayaa lagaaga bedeli karin computerkaaga marka insha allah khayr ayaan idin rajeynayaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته